بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل معلومة نفسنا ما نتيمه كل شيء هذا البرنامج كده ويارك ووقت يدنا كلا أنو ديسو كت بالنو برنامج كده ويارك هذا يقول روح القصة قادنا تذكر تاريخي هنا ده أما وصل توجي دعوة أباهن إن الحصة أما وحلا جاي لهذا أما وياها الولاد قفكو متى نقول هاي سووا هذا ولا كل ما أي القصة قادنا يلا قف با وحواي أرك كي هاي قف كي هاي ويارك لنا تاريخها قف لنا التجارة قف لنا وياها الدنيا nolosha waxyaabo ku soo mara ayay hadii goor barnaamijkeena ku eegnaa haddaba bariga qaaradda Afrika dagaaladii ugu waqtiyada adka ee soo maray waxa kamid ahaa dagaalkii dhaxmaray urkii SNM iyo ciidamadii Maxamed Siyaad Barre kaasi oo muddo dheer socday hawlgallo fara badan ayaa dhacay muddadii uu dagaalkaasi socday saddex hawlgal ayaa jiray oo ugu waaweynaa ama ugu muhiimsanaa oo ay wada kardo heer caalami ay noqon karaan una baahan in la xuso ama buug lagu qoro ama wax laga yiraahdo waayo taariikhdu iyada ayaa istilmaanta ama ba isasheegta saddexdaasi hawlgal waxay kala hayeen hawlgalkii jebinta xabsiga Mandheera ee 1983 ee uu hogaaminayay Korneyl Maxamed Xaashi Lixle ilaahay ha u naxariistee hawlgalkii ka dhacay Birjeex oo ah xerada military ee magaalada Hargeysa bartikeeda ah oo iyada dhacday isla sanadahaasi iyo sidoo kale afturkii deeqdii Somali Airline saddexdaa hawlgalba waxay ahaayeen hawlgallada khatarta ugu waaweynaa ee ururka SNM ay sameeyeen haddaba waxaynu barnaamijkan ku soo qaadi doonaa mid ka mid ah saddexdaasi hawlgal waa jebintii xabsiga Mandheera ee 1983 sidee ayay u dhacday maxaa sababay in hawlgalkaasi la sameeyo muddo intee leeg bay qaadatay imise ciidan ama tiro ciidan leeg ayaa labada dhinac ee SNM iyo xagga ciidanka Siyaad Barre isu wajahay maxay ahayd ujeedada laga lahaa sidee loogu guuleystay imise qof baa ku naf waayay khasaare intee leeg baa ka dhacay su'aalahaasi oo dhan ayaynu halkan kaga jawaabi doonaa waxa haddaba dadkii hawlgalkaasi ama halgamayaashii dagaalyahanada ahaa ee hawlgalkaasi fuliyey ka mid ah oo halkan loogu martiya maanta Maxamed Salebaan Jaamac oo loo yaqaano Afweyne dadka badankiisuna u yaqaanaan ina baryacne محمد بورس كسر له برامجك. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا لبي استيتك وشهر كارسنت هاي. ووضعها ولا يسوق دبرها ولا يسوق. محمد وين بلابدنا برامجك وبعد سنة وين كشر كدونا لكن مركب بورس واحد متعلم بلين الكويدينو ومضتك سكين برضو. قول ما ضغطي هل كانت سكولاتي. وأنا شيء كتري تدورنش. هي كتري. وأقول إيش عينا بقى. عينبا أكاد بربارتي waxaan ku barbaar argaabo miyiga argaabo waxaan ku barbaar yaraanteedii way haween shaqadii ugu horreysay qabatay maxay ahayd waxay ahayd ciidamada militariga saddex toddobaadkii ka murtay caalamiin saddex toddobaadkii baad gashay ciidanka militariga halkeed ka bilowday markaa ciidanka waxaan ka galay sheekh waa tababarka ku galay markaa tababarkan ka dhameystay koonfur baa laga qaaday luuqaana iyo baydhabo iyo garbahaan iyo dhulkaasa joogi jiray muddo intooro 4 sano halkaasaan ku noolaa markii dambe dagaalada wadaga dhacay oo tii hawl layska horyimiyay Ethiopia iyo Soomaaliya way dagaalka 1977 ee Ethiopia iyo Raxmaray Soomaaliya mid ka mid ah ciidanka ciidamadii go'ay baa joogay halkaad ka gashay godi markii dambe la soo هاي بلوغو في الجودي هم كل كابو يستوون عندي من سوق من ده. أكيد خير كتاب. كذا كذا تاني من الجودي. وهي كتاب تزارت. الأول نبادو هقول كي تبين حبس Mandheera أو تاريخ ونفهمتي له. لقى يا بلو تدكو إناني وفهم سنة سيد وحده. المركب هو رئيسا أنت هنا وجود جلين صورة قاعدين هالشا. نروح عند نوجو ورنتا. قول ما تكون بيرتاد ويسرنتها. وحنقول لبيس تكيب بشيء لما. هكذا كبير. وحنقول بيرجعشانو. لكن إذا سودي تربية إذا كبر أساسياش وكملها. إذا كبر إيه هكذا. أساسياش وكلا أساسياش بكملها.
يعني حق الروح ميليتري حق الملتقى جبهة كهو رجيس ويجي ماشى رجل بربع وقت بيولي تدخل يولي مربى واحد لما سكتولي مربى نحن بقول لواطن مربى ترى حد عن الحي يا مربى ولا سكتولي تدخل صد ولا سهرب رب دعية ولا سهرب ولا يقولوا ماشى واحد دور هذا هو قال كاسي halkuu kasoo bilaabmay halkuuse ku dhammaaday bal looga war halkuu fadhiisay yaa idiibi maxaa la qabanayaa bal idiri halkay ka bilaabantay hawshu anigoo dhabaraba jooga baa laga soo qaaday goor galaaba gaariyiin waa meel kilka shanaad ka mid ah waxaa la keenay gaashaan goor habeenimo toddobaadii ay meelaha tahay dabadna gaariga daaqadiisa waxaa iga furay cabdiraxmaan maxaase oo halkaa laba ciidan baa jooga ciidan wadaadaha iyo odayaala iyo ciidankaa howlgalka midheere u baxaya dabadda daaqadu iga furay wuxuu yahaa baa ku yeehay ciidankan adaa ciidanka kala garanaye dee inoo caalayo inoo eg oo adaa dee kala garanaya askarta u taga ciidankan waa u jooga ciidankii baa gartay dabadda waa kasoo horjeesto dabadda markaan ciidankii wada gartay bal halkaa hore kasoo jeestay dabadna waxaa noo yimi maxamedka ahayn baa noo yimi wuxuu howlgalkii ugu ballaadhnaa ee ugu adkaa ee dalka gudihiisa maanta laga sameynaya laga geliya baa gelisa waxaana lagu maqnaanayaa muddo dheer ciidamo iyo saraakiilla way ka horeeya ciidamo iyo saraakiilla way ka horeeya waxa weydii yaalin buurta idiin yaalay dee in ilaahay ku guuleeyo baa rajeynaya odagaasi waa ka baxay waxaana soo galay wadaadadii iyo odayaashii baana soo galay ducada noo miiseen ducada bay noo miiseen taariikhda waxay ahayd 82 oo shahriga kaarsatay oo habeenkaas ka mid yahay dhamaadkiisi sanadka wey dabad gaarigii aan la socday rasaastii wuu aaday gaarigoo rasaastii laga soo buuxiyey boqol sanduuq oo rasaasa lasoo saaray 70 AK iyo 37 baa meesha soo taagay dabadna waa odaydii waa noo ducaayeen beri ka maalin inagoo nabada waa inaynu isugu nimaadaa dhulkii haddii alla yar baynu karjeedna ilaahay ka baryaidinko nabada qaba waa dhaqaaqay aanu dhaqaaqnay gaarigii aan babaxay oo aan soconay baa inakahay meel dhexe laga joojiyey waliba waa nimanka sanad baa meesha ka dagaalamaysaa waxa uu weydii yaalay gogoshiina iyo shadadihiina waa qaata baabuurkii aan kasoo dugo gogoshiina iyo shadada xeradii nagu dhow baan kasoo qaadan waa dhaqaaqna gaarigu wax cilada wuxuu leeyahay taangiisa daloolo sixada biyaha u qabayo nus saac markay uu socdaba taangiga la biyeynaya waxaanu soo galnay magaalada go-o waa gaari shici waanu leeyahay da anagu oo daba go-an waxaanu soo galnay meesha lahada go-o intaynan gaarin halkaa waxaan ognahay howlgalkaas in uu hogaaminayay allah u naxariistee korneyl maxamed xaashi diriye lixde markaa miyuu dala socday mise meel kale jiraa buuruhu jiraa buurahan ugu tegina waa ciidamada leeyaha u tegaysaan saraakiisha u tegaysaan buu ka mid yahay go-aanu soo galnay go-o waxaan ugu soo galnay ciidan xadkii baa kasoo tallabdeen xadkaan kasoo tallabdo de wadahalaas cid aanu saragna ma jirto jidku waa mooah wax dhibaato oo naga sii haay ma jiro waa soo dustay waxaanu ni go-da markaan soo galnay waanu saa ugu qabanay baabuur farabadan gaafkii buurta silsilada guris saa ugu sii jiro kooyo isu daba joogto 10 15 6 8 saa isu daba joogta oo ciidana oo hurda waanu soo galnay waa habeen waa saddexdii oo waxaa weliba saddexdii ay gaadhin waaya gaarigu shirikaamadii biyaha waa soo laasamay dabadna labadii baan dujinaan barkadaa biyaha waa kasoo laamiya labadii aan dujinay labadii aan dujinay shirikaanada u dhiibnay barkadii bay biyo kasoo waayay way soo noqdeen foosto hudheelka hortaala bay biyo ka heleen u buuxeen balse foosto hudheelka buuxdee lasii gaarigii darawalkii baanadii lasii iyo tuubada baanadii iyo tuubada way ku fiteen dabadna tuubada u riteen tuubadii markay u riteen baa afar askari soo aatay gaariga budbulaha hoosaa noo baxay oo ciidankiisi ciidankaas kasoo horjeednay
afartii askari waa soo socotay xagaafkay soo raacday soo socda markay gaariga badbadihiisa soo gaareen casaysataan in maxaa casoo xagga askarta xigaa labadeeda daafta jooga baa askartii ku yimid askarta doctoorow way doctooraadeen dib u jeeso oru soco orda shaqadii naada ya askartii afartii askari laga hadlayay buu amar siiyey askartii wuu doctoodayey dib buu ujeediyey horu soco wuu yidhi saasay ku socda markaa daraju istaagidrismiya qoligii qolyahayda gacantaan ugu haysanaa qolyahayga iyo dareskayga waa arkaa inaan ciidan nahay oo habaysan wayna arkaan dabadda askartii waa iska tagta markaa kuwa dambedilmudin kuwa daciidanka kamidmuudo dee soconaya meesha hawlgol u socda way noqdeen xelahooda markay sii galaan meeshii gaadiidkooda yiilay baa jirikaamadii biyaha dhaasanay gaadhigi waa biyeysanay jirikaamadiina dushaanu saaray magaalahaanu saaray dabadna waa dhaqaaqi gaadhi gooladiisi dhaqaaqay baa wadaadkiina daakiraadii ku dhuftay daakiraadii markay dhacday baa qoladii siyaad bareena laambigilkii ku dhufatay laambigilku maanaga mageediba de birbiraha noo baxday waan aragnaa askartaa toostayda wada kacday niana gogoshiisi ku foorsaday inay gogoshii duubayaan si fiican baa loo aragnaa dabado biriqaan ka dhaaftay buurtaanu qabsanay anagu intay iyagu felfelaya gogoshaa duubanayeen baan buurta qabsanay cagta balaayo buurta markaan marayno baa la yeera qoladii shirka ku jirta inaa waxaase xaydi leehdaa baa ku jira shirka waa midigtiina calaamada ka eega wax calaamadada dhacaa ka eega wa iska socno markaan daldaba usoo dhaweey baa calaamadii dhacday 6 jeer noo dhacday markaa xaggii mandheero soo socotaan go'dii baa ka timaadeen mandheerada meelaan u socno garan wayne dogo-aankano daldaba baan kusoo degina markaa dinka ladima sheegin mada tegayo meel aan u socono iyo meelaan ku jahaysanahay berbero ku soconay burco ku soconay meel allaan meelaan ku jahaysanahay dareen ma hayo anigu wax dareen aan ogahay ma jirto askartu waa wax dareen ogtay ma jirto dabadeed calaamadii baa dhacday calaamadii waa 6 jeer odaygu riday ana 4 jeer baan u ridnay dabadna waa iska soconay togi baan kusoo foorasay dalawar markaan magaalada go-alaha ka tuuladeeda xigta galbeedka toga markaasaan ka laxno calaamadii halkii ka dhacday baan u leexnay buurtii caaroorkii yaraa caalamad ka dhacday baan u leexnay aroorkii markaan qabsanay baa nin ordaya naga hor yimi arjoojiya gaariga haye gaarigaa celinaysaan togaa ka tallaabaysaan farashtiina waa la daba socota oo waa nagu daba jirta oo waa naga dambaysaa toga daantaa ka soo galo gaariga toga daantaa kaga soo roga hay waa naga degay oo wuxuu raacay markii annaguna gaarigii waa soo celin orguna si fiican buu soo beriyaa markaa dib baan u soo noqday intii aanu soo soconay oo aroorkiina kasoo soconay baa waagi si fiican u beriyay faqashti way isu muuqanaa baabuurtooda waa aragnaa markaa waa ciidankii siyaad bare way isu muuqanaa istaawarayna anna waa arkaan halkaa marayno dabad markaanu siri togi ku dhaadhaca oo togi laba haad noqday wadooyinkii kaloo dhan baabiceen oo laba haado isu jira 3 tallaabo waa gaarigii taayirkii hore gaarigaaba naga caqli fiicnaaday oo ka hortegi lahay taayirkii hore iyo 2 dambe ma jarne gaarigii tuur buu yeeshay waa maxaan yeelay ardaga askarta weerarta gala weerarta halka bahala biyaa siiya togi waa bartaa gala halkaasi askarta ku wadatay aniga askari kale oo kusoo hadhayo shadadii baan dalacdo fooy bagaarahanu saaray gaariga gogoshiina oo ka daba qaatay markaan intaa dushii saaray baan maba gool baan furanaayo rasaastaan kusoo laabna ilaa shilaaq maaha rasaastaan gaariga rasaysan oo dawliyadda rasaysan gogashii markaan ku tafatiray xaggii dambana kaga soo laabnay geesina kaga soo laabnay baan shadadiina dusha ka saaray ka soo bootay nimankii 2 nin baa gaariga ku hoos jiro oo taayirkii hore dalaacaya oo jeegii ku dalaacay baksaar loo keenay dhagxantaa waaweyn dhagxan waaweyn 2 dhagax waaweyn baan u keenay oo u dhignay jeegii way kasoo dusheen dhagixii gisheen
kii daba usoo wareejiyey kii kalena dhakan waabi baanu keenay alkan bahosha weeraarta dusheeda waanu iska fadhiisanado intaan qoryaha ka saaray baanu looga saaray halkaasaanu shaxbeenaad ku ciyaarayna dee waa ku madadaawayna faqishti waa soo bilaabantay markii qoraxda soo boodi waxa ugu horeeya gaari saysay ah oo saana wuuna dhaafay taliyii ciidanka wato u aas wataana waana dhaafay gaari tiialo ciidanka luljitaleedo saanka miadii iyo saadkii iyo taarikii iyo alaabtaas daana oo tii amniga lagu yimi saraasharafeed buu noo taagay waanu ka qaadan baabuurta cadadkeedu waxay dhan tahay waa 125 gaari wuxuu leeyahay inataree fuqay bararay gararan inatareeyo yuudiyo noocaana gaadiid ka wadani ma jiraan waaweynkaas yaa askar baa ka buuxda ciidanka hogasitaa waa ciidanan ku qiyaasnay ilaa 200 baqriyuusita kuwa hore iyo kuwa ugu dambeeya iyo kuwa dhexda ku jiraan waa leeyihi yaa waanu aragnaa da askar dhibooda inay yihiin loo wado galbeed waa dhibaato oo naga haysataa dama jirto mardi madaxeedii hore nalaafay ay baabuurtoodana nagu dul jabay yaa kolayadooda de wata 11 iyo barkii maalinimo baa kolayada istaagtay wareega waa dhamaaday nimankii waana dhaafeen wargaari waa diyaar darawalkii loo wada cabdibooldoole waa yiri gaari waa diyaar ma diyaar ba ahaa warlixaas gari kaxayso gaariga toga ka talaabiyo toga ka hoosgeeyo markaad toga ka hoosgeysid rasaasta ka rog ha rasaasta waa cabdibooldoole toga ka hoosgeeya rasaasta rasaasta markaad ka rogtid gaariga toga ka hoosgeeyo gaariga gub markaas gaariga gub ayaa xaggaan idin dhigaa alaabta ninkii gaarigii wayaa loogu jawaabay gubaa gaarige xaggaan idin dhiga oo saa u gelaysaa waa la noqonaya siriga waa afufla askarta siriga waa la afa kuyuu baa noo galay weeraartii ay askarta loogu jirtaan wax allaale wixii rasaas ahaa ku dejin kuyuu taagalo saa isugu dhiidhiibnay gogoshiina waa ka dabageeni alaabta idaankaasa lagu galay oo markaasa kaxarsaa buu yidhi codsi buu yidhi waxaan iska codsanayaa in faybayaarayo fuuro xiga eega gaariga sagxadiisana wuxuu hadlaysaa ila waa gaari daba furana waxay wada xushu taalla tuuladana dhuka leexana xalayto bay tahay dhuxushu dhuxul babaasaga arkayo rafiiqada waxaa raacaya maxaa soarafooda gaarka qayba buurtana gaar u dir alkana gaarka u qaybi dhinacaas uu raacayo 20 doollar dhuxul u saaray gaariga lagu soo qoran noqon galbeed buu afar soo saaray ood weynu u leexday ood weynu markuu biyo aan isla gashay ilaaha laga kala u jireen baa wada yaro bidixda u leexata oo wada baariya buu dhuftay gaariga moodhul xoreysta waxa wadanka xariifku allaah ku ah waa casarkii dheeraa gaashaa uu joogo dhuxushiisii ku rasaysay yaa ilaahay waa nabadgeli allah barti waa fadhinaa halkaa casarkii markay casarkii ahayd baan xaggaa buurta rageeyay araarka dabadna ninkii waanu ka hornimaanay ninka isu soo raacnay inaanu saaxiibahay mataan maadi bas soo raacnay wariyaa saddexa waa beeraha ma ku aragta xagga magaalada margoydii dabeerta saddexan xagga magaalada markaas waayahay waa runtii waa leexday ninkii markuu 5 tallaabo socday walaalo haddii qoraxdu dhacdo oo buurta ciidamo iyo dabeero badan bay fiirmayeen ha isku khatalbina waa markaa kaale markaas adee buurta dabeero iyo ciidan bay idinka imanayeen ha isku khatalbina waayo dabeerta saddexnaad inoo to marka fariin buu sida fariin waa isla saqaya fariin sida wuu socday ciidanka kusoo noqonaa farashada walbuxdo inaan raacso buurta joogana farashada ugeeya ciidanka buurta joogana ugeeyaan ku niri annagu iska soo noqono meel dhaxaan iska fadhiisana dee markii qoraxdii dhacday oo dhulka madoobaaday baa buurta aroorkiiba soo geliir aroorkiiba dee dabeero wax ka sanqar badan waa dabeerkii ugu horeyaan soo raaca waa dabeer karbaash baa saaran
dabeerii baan ka fekeray si madaxa dhigo madaxa dabeer waxaan ka fekeray si loo rariyey waxay noqotay inaanu rasaas dabeerda waxay saaran karbaash iyo xarkii way buusitaa karbaashadii iyo xarkii way sitaan waxaan ka fekeray dabeerkii si loo rari lahaa waxay noqotay dabeerkii in loo raro inaanu gooshayooda intaan duubno inaanu surad ka dhigno oo sanaaduuqda rasaasta dabeerkii qaadi kari maayeen dabeer walba sanduuq walba kala soo baxna labada keliyood oo laba keliyood dhinac saaran afartaa keliyood dabeerkii saaran waa islahla markiiba sawirkiina in bacaa laga gooyo inta laga soo saaro sanduuqyada filiiskoodii iyo xabadiina isku xidho oo nin kastoo qorisitaana xabad qaado kuwa waralaha ciidanka noo yimina ay qaadaan 2 iyo 3 iyagu yaa ka dabeerka wada mooyaane kuwa kale ee dheegahay inay rasaas badan qaadaan waa islahla waxa iyagiiba banaanka lagu soo dalacay sanduuq walba oo jibinaayo banaanka loo soo dalacay dabeerkii judhi waa raray waa socday godkii lixda oo raashin karinaya lixda kuwa oo raashinkii karinaya kasii horreeyey dee isagu godku jooga isagu roobada iyo maanta godka sidii dadku fahmaan halkee buu ku yaalaa godku wuxuu ku yaalaa teenig bilixda ku jiray muxuu kasii qabtay hawl wuxuu ku jiraa lixda wuxuu ka qabtay meesha waa wacyigii degaanka meesha jooga ciidamadii lixda hadday reerfaytay iyo hadday amarta iyo hadday oday tahay iyo hadday mid yar tahay ciidamadii lixday ahaayeen xoolaha daaqaya waa xoolihii lixday dadka meesha jooga xoolaha iyo dadka meesha jooga waa xoolihii lixday waa meel sii bislay waa meel sii bislaystay waa sii butay meesha ciidanku waa ciidankii lixday ya wax allaala dabeer waa dabeerii lixday wuxuu waa lixday ya waa ciidankii lixday godku waa godkii lixday ya dabeed waa kuma waa fayda ma maxamed saleebaanba haa adeer horowaro godkaa tooshkaa qaado ifiyo alkaa dhig rasaasta ba soo buuri karaa haddeer maayi waa rasaas waa boqol sanduuqo ma soo buuri karo qofta bar labada waa noqonayna waayo noqda alkaana hayga marina alaaba ay taadeen dhadhaabaa magalas halka dhadhaabaa ah dhadhaabo xashado dee raashinkii weel ma haysta digsi yar buu haystaa kildi yar wuxuu kale iyadoo halkaasuu dhigaya dhadhaabahaasuu waxaado u qaybinaya markaas wixii kale lama sii joogtay keligii meesha waa keliyo cadawdu waa noqonayo rasaastan soo noqda inaa case iyo 2 askari baa jooga oo alaabtii soo dallacayo dee banaanka soo dhigaya soo wade hoosta kasoo dalacayo oo sanaaduuqda wixii qashignaa gees u guraya wixii rasaas ku jirtana gees bay laga raacaya oo dee wax alaabtaan dee la sugaya wixii qolof ahaa iyo wixii sanduuq ahaa iyo wixii bac ahaa godkii baan kaga dhinto bohoshii baanu kaga dhimay waliba waa ninka bohoshii waxaanu kaga dhimay wax allaala wixii sanduuq ahaa iyo wax allaala wixii waraaq ahaa baanu kaga dhimay aan ku dhixay markaas idinma taal buu yiri ciidamadooda u taal buu yiri hawl idinka idin taala maaha hawshaasi ciidamadooda u taal buu yiri ciidamada soo jawaa garab weyn ku ya ciidamadeedii geesada ku sitaan ma aragno waa ciidamada dabeeraha moota daweyn ciidamadiisu iyo daweerihiisa dabeed wixii bay khalisoo iyagu ismeelay geeyeen iyaga yaqaano goodo qodo ah iyaga khalisay wixii waayo ina xasan soo noqon buu yiri gaadiidkaba qaar baa faar ku soo noqonaya kulli waa noqdeen dee qaar baa faar ku soo noqday gaadiidkii 40 dabeeraha dee la saaray dabeer kasta 2 sanduuq la saaray ya ila waxa la rabay waa rasaasta aakeyga tasawirka gacanta lagu qaatay isaga ya 7 sanduuq aakeyga baa labada difaaca ugu horeeyay loo fuxlaa okay odaygii imise markaasuu ciidamadeedii markii ciidankii rasaastii dabeeri laga dhigay markaasuu ciidamadeedii kan waa shaqo tagi kartaan hawlihiini baa qabsan kartaan socda
ciidankaas waa dhaafay walaa waa fuuliye kooxdu maxay ka kooban tahay 42 baan nahay aada ku jira adigu 42 bay ka kooban tahay markaasuu toos halkaa ku qabtay halkaa tabagii halkaa tabagii waa dhadhaabo والله توكي دارع وصلت جحا ألف التولد أغرشيان ونالو حالي بيها سوا دردو وصافي البيك سوبي أكتين أكا كسو قادان بكعب كرتان وكفر حالا كرتان نولا أكا كسو قادان وبيا معان راشي كرامون محا حالي أنا الله أكبر هذه عبد الرحمن ناخذ أنت بريسكا عمر وعشرين وفرح لك ثابية وفرح لك وطلت بوجه يا قاضي مركي أنا فرح خسرك علي عشان العصرني بموضوع رئيسا ها أنا إذا مرة إذا جاك قوانا كنت كوان نظيف كان عام مره وسخنا مره حتى الدوتا قوشينا دكت وساعة قال كان عنا قدرنا أنا يعيد مضينا فقلت كنتو لقي قياستي قلت وحو لقي وحو سوشرا قلت قياستي ما كان قياسه إلى 100 متر 10 متر بسوشرا يا إلى 10 متر مركب قياس هم كويل انتين مديرو جرا مترين مرة مرة دلدل مساوي إيديا دلدل وان هودكو إيديا قدكو هودك بو إيديا أيو دلدل وان دلدل كان قدك تاغنا هاي قفك حياة فماريا إن المير يهي إن إلي يهي إن النوي يهي إن إلي يهي إن قواري يهي إن إسلاة قفك توصل أحكي لو قررنا يا هو أحكي لو مغير وحماني أنا أحكي لو قفك مريم مغير توصل أحكي ومغير ساوي إيديا كبار يربع نجحنا محمد الأولي هذا ما كان يشتغل بحر الساسة ما أخذنا ماشي رسعنا ساعات جهور تأكلات جهور كان قبلت شاهي من وكر يوم صار صدوش شاهي وبسلي هذا كل يديك سبب بحال ساق عند سكر ساق عند سكر كوكا لحية ترى صوك عند أفوين محمد صلى الله عليه دارس ويش كل يوم يديك سكر الشاهي ما يكونش لا وبقى يستيقظ واحد كعب كذي كعب أسقط هنا وسؤول الماش شاهي وانا عندي قلت ألوه وألوه بجير بالكل جاي يسؤول الماش لو حكيت هذا الساعة ما يصير أمي ألتينا ها الرجال مقرأ وعمل صاف عيرة قلت كيف كيسوي فايرة مركزو حولوا وراها هرايا مركي عام فريستاني بيا فريستا ولا فرتينا سريستاك كل واحد ما قاعد صبحيه كل واحد عيدك ماشي مريه ما قاعد صبحيه ما أنا كسرنا وليد مشي ما فيها سنة مولانا كسرنا ما ببلانا كسرنا ما برعنا كسرنا تبقى ما فوضك ولا مع ذات إذا نودو ولا كسرنا على اللي بنودو وحنا إذا حنودو بس أنا أنا ماشي كسرنا وكسرنا ما أنا كحد وشرير أنا نصعنا نورين كحد شريرتها والشرير والكحد تكون شربالي وصانع أنا تري ها أنا كحد وشرير يا أتعيدك يا أنا كحد وشرير بس الدحات يقول عشي بتري كحد وشرير وشك عيرك والله ما يسافر يروح يا صح أيوة واشكره واشرين له الله بركة يا له الله بركة يا وين تبدأ حنسي ويرد وعرف سيد فاش تلوك بيسلس ونهايه مي عروتي مي إذا ما نلوط كاستيسر سافر يروح بعصوي يا حتى كيف كبح حودي حقنورين وعرفته
intuu qorigiisi yaraasaa qaaday buu kaasoo maartay wallahi kaasi kaasi wadada ku qaadaya kaa midana dilo iyo mida wadada qaada waa inay noqdaa toos u socda iska tagadee ya waxa weeye cadowgeena waa sahaminayna sahankiisi baynu qaadanayna awoodha bagelayna ciidan baan dararayna aroortaanu tegaya sahanka sahanka taga laga waayo waa aniga haddaan maxaa xaashi tiriye anaa sahanka tegaya salaada hore saqda dhexe caawa saqda dhexe ninkay ciidanka idinimo doona ii toosiye aniga waa nin marka lasi balansiiyo waa nin ciidan uga balansan yahay marka halkaa waxaynu jecelnahay inaynu fahno in lixdii waktiga ay tahay intii uu howlgalada gudaha ayuu ka wadi hawlgal dibaddana u baxayo isku xirka ayuu lahaa labadii daba barbarbi mashari gaashaan oo wuxuu joogay bara hargeysa marka burcuu joogay ilaa barbaro wa gaaraya hawlihiisu wati xitaa tuuta iyo raashiga wuxuu kasoo qaatay hargeysa oo gaaribaa meesha u dhigay alkaa gaadhigu soo saaray alaabtiisa waa halkaa u keena alaabta dabadaan godkiisaasuu dhigtay dhulkoolaba meesha dee xitaa xero militarigu galaayo dee cadaadii buu tagaa wadanka o dhan ka waraya wadankan uu joogo o dhan dushuu ka haystaa ya dusha buu ka haystaa dabadeed wuxuu waa salaada ii toosiya isagoo salaadii salaanaqsaday aanu salaadii tukanay oo gaarkii tagay istaag markaasoo naqsanay wuu soo daa masaajid buu ka samaystay mawlaca godka hortiisa masaajid mawlaca oo qibladiina halkaasuu salaada markaasa lagu tukanaya isagaa loo imaana waayahay kabuu gashado waa dhaqaaqay xaggii cadaalay markaa dee loo sheegay afahanay hawsha de inay hawlgalku uu yahay mandheero uu yahay markaasaan isfahanay markaan afgarashada bixinay cudurka xag ku shareeraya markaasaan isfahanay markaasuu noo sheegay uu yii jeelkanu ka sii deynanaa maxaabiista waa xukumaynaa meesha innaga baa xukumayna ciidankana iska tagaan leer way markaa maxaabiist gaara oo bartilmaameed ah oo lala soo baxayay oo howlgalku ku wajahnaa ayaa jirtay mise guud ahaan dadka meesha ku xiran ayaa la doonayay in la soo jebiyo qorshu saas u lahaa jeelkao dhan la jebiyo ilaa magaalada in la hubeeyo maxaabiista jeelka laga soo wadaayo in la hubeeyo ya oo loo qudbadeeyo oo la joogo maalmo bay qorsho ah dabeed dagaalki uu kasoo noqday saankii uu kasoo noqday saankii markuu kasoo noqday wuxuu noo sheegay ciidanka siyaad bare iyo xerada militariga jooga laba goobood baa rasaas waardaa laga qabta istabta wadada xerada militariga ka leexatee jeelka iyo usoo gudubta magaalada halkaa waxaa jooga istabta waxaa jooga 4 askari baa gaarka qabta rasaastay haystaan oo waa 10 xabo 10 xabo yaa haya makabaan boostaha haya bise sitiriga labadaa mid baa laga baaraya 4 nin buu qeyb 10 xabo dheeraada miyaa waa 10 xabo keliya haystaa 10 xabo oo kabaan boostu hayo ama sitirigu hayo bay haystaa maxaa markaas sababta lagu qiyaasay ee lagu yeeray waxaa loogu yeeray waa xiniyo dabadood oo guri nabadeed waa xeeb meeshu ya guri baa la jooga ya meel cadow soo gaarayaba dee cadowgu ha soo cooso dhulkaa kale dhulkaa kale hasoo waa nabad waa goob nabadeed afweyne istaag u istaag 3 askari horta ciidankii buu qaybsho wuxuu kala baxay 9 buu kala baxay isagu anigu 9kaa iyo anigoo ku tobana waxaanu jabsanaynaa jeelka wax tafaasiila jeelka nagabasi jeelkii ugu jirta wuxuu jeelka kula soo heshiiyey jeelkii ugu jirta iyo xadku soo dhigtay jeelkii ugu jirta wax tafaasiila nama siina xerada militariga tafaasiishada ma siinaya afweyne istaag 3 askari kala soo baxa askarta halka xidasho 3 askari kala soo baxa wuxuu yihi 3 askari
ha kuu taagnaadeen adigu markaad galbeed baad kasoo gelaysaa toga galbeedka ah baad soo raacaysaa dhudhubta kaldibida ah baad kasoo boodaysaa rakaalkaad kusoo boodaysaa waan garanayaa waa kuwa ciyaalnimadeydii baad ma joogi oo si fiican baan garanayaa baan ku iri oo booskeelkeed faqeydii marka ayagaa kasoo dhacday ninka rakaalka baad kusoo laabaysaa ninka rakaalka aayar qabo ciidanka ugi markaad ciidanka ugeysid ciidankayga taagka dusha jooga ee godka ka soo baxay aad ugeenaysaa halkaa ciidanku halkaas ku hakalaya inta hawsha hawshinka guda aan fuliyeyno ciidanka kale halkaas lagu sugaya waayo waxaa hawlgelaya afartayada nin baa hawlgelaya markaa ninkaa geeyo oo kamaanboosti iyo sintarigi baan qabanayna marba xaayadda waxaan samayno usii galgalnaba inaan aan naba ku qabanaan doonina labadaa nin baanu tobanka xabana ka maarayna tobanka xabad markaana ka helno naga tagaalana qoriyahow socda yaa dhibaaxaydana ku dhufarno baana socda ragga dalka lahaa baanahay dabada cagta saama dilayno ninka wax dilaa waa dil ninka ajarjara waa dil lixdaasaan lagu afriya ninkii wax dila ama wax dhaawaca dembigiisuu leeya ya waa ugu qaadaya halka uu taagan yahay baan kaga qaadayna waayahay taarki dalwadii waa kasoo booday waddadii yara dhudhubta ahayd kala dibida ahayd waa kasoo daba booday daba waxaan dareemaya in dhowr askari soo baxday markii aan sii socday taarki kasii dhacayay taarki baan ka dhacay markaa websadii markaa saacadda markaa aan hawshaa galay bilaabay waxay ahayd amarkii markuu dagaalka na siiyey hawlgalkaygi iyo wixii na siiyey waxaanu alaabtii usoo guranay calmado baan usoo guranay oo iyadoo u jirta 100 tallaabo oo laaga hoos loo daadagayo 1500 hoos aad u soconaysid 1500 baad hoos socodsa aftada ku soconaysaa meeshu tog weyn baa ah tog bari iyo galbeed buu leeyahay galbeedku wadamada waa gaaf biyuu kasoo da-aya dusha kasoo da-aya waa arka buurta u weyta buurta quwadeedu waa arka weyta waa gaaf waa kacalibaax waa arka godadka yaata ee samada biyuu kasoo da-aya samada biyuu kasoo da-aya halkaasaa rasaasta usoo daabula ee xalinka ugu xuna rasaastii waan kusoo daabulay maalintii waan soo dhamaynay amarka dagaalkuna siiyey isaguna tologkiisi wuu diyaargaystay hawlahayga saasaan usoo dhamaysanay ciidan shacabaa nooyi askartii waxba meeshaba laga degi kari waa askartii ka degi kari weyday buurtii ma laga degi kari waa meel doonfoo halis leh dabada afar shacab ah oo ciidamadii lixda ah baa noo yimi tobana waa kuwa hawlgalay oo waa dhaadhaxdaano askartii kale waxaa nooga soo gurtaan godkii lixdee kasoo gura halka dusha noo soo dhiga annagu cashaan u dejinaa dushaan usoo maxnaa waa qaadanaa halkaas dee qarfahaasaan qabsanayna meesha waxaa ku yaala baad cid kala baxay waa meel samada biyu kaga soo da-ayaane geeduu cidkaasi doomaartu waxay laagtay la shoogiyo laagta xoolo waxaa ku nool la ugaana oo dad kala leeyihiin oo u kala socota koox lo-da balwaayeeya reewaladiisa calaamadiisa wuu haysta waa dabadgelen waa ogaan waa sakaanadoo kale lo-daas ilaa 10 raqam lo-daas 10 raqam wey 10 kooxood kala duwan kooxda la socoto qof walaha dhagaxa waa ka boodaysa oo maaha xoolada isi waa xoolo ugaadhoobay halkaasay ku dhashaa dee isku raacda marka ay wax ka cunayaan doonaya wax ka cunaan way dabtaan halkaa lagu dabaa si kale uma qaban karaan dibaday dabaano halkaasay dibiga qoobka laga xidhiya geesaa laga xidhiya gafuurka laga xidhiya saasaa lagu xayo baabuur lagaga saaraa go-o halkaasaa laga hoosgeeya togaawil haddii midka qabanayaan halkaasay ka dabtaan si kale oo lagu isticmaali karaa ma jirto
meeshii alaabta aan kusoo dhamaystana habeenkiina dushi baan seexanay habeenkii dushi baan seexanay saddex salaadii markaan tukanaan soo alaabteeda soo qaada shadada iyo gogosheedii gogoshii waa tureo daafta u dhacday dee waa laagaas ka dhacday laagaasaan ka tuuray shadadina waa ka daba tuuray annaguna qolofka waa kasoo degna qoryahaygi irsaasdeeda baseena waxaanu ugu dhin meeshii lodii ugaadha ahaydoo nin fadhilo oo hilib laqalado la wasladeeyey oo googo-an baan meeshii ugu soo degay waxaa noqotay digsiga dharaar raashigaaba naga go-naay hilibkii dibigaa la qalay hilibkii waxa la qalay saamkii horea la qalay geelkii horeo intii kale dameer baa lagu qaado wax la qabadsiiyey meesha aanu ku beeganahay habeen dambe sacda dhexe aan waa beega ku beeganahay baalsiidkeyi waa sahaydii ragga laba kale baa kala soo beraysa baanu sidanaa hilibkaanu karnay waa bislaysana hilibka markuu noo wada diyaar garoobay baanu nin walba qeybtiisii siinay hilib badan buu noo noqday wixii aanu cunay wixii kale tuutii jabkaan ku kuranay waxaanu diyaar garoobay 10kiiba waa diyaar garoobay digsigaa nagu yaraado waxba noo kari waaye ilaa dhowr jeer dalka ku ceeyay socodkii baan biloora cali madow baan marayna hoos baan usii soconaa hoosun baan usii socona waa socon maalintii ulilan socon maalintii 10 subaxnimo socodka biloora maalintii ulilan socon habeenkii ulilan socon waagu markuu soo bariyey oog istaagayay baan kaga soo dultooraalkii dabeerka hilibka la geeyey annagoo bacalo baktayna wixii jawaabka lagu jiray hilibkii cidaawada naga soo horeeyay laba lagu horiyo ma aha dusudeedii waa sidana hilibkii jeebka aan ku guranay jidkaan socodkaan ku cunay uma fadhiisanayno biyo maanu cabin inaa socodkaan ku liigtay kulana cid istaagaysa iyo cid nasanaysa iyo cid seexaysa ma jirto hilibkiina soo gaadhay ciidna nimankiina dabarkooda soo kaxaysta waan soo dhaafay annaguna dabkaanu gelinay alaabtoona karsan waagiina nuubinay salaadii hore ba waxayga noo wada bislaadeen ciidankaa noo qaybina nin waliba jeebabka ka bogsaday hilibka ugu badaa weeye jeebabka tuuta mid sare iyo mid hoose iyo koolaa u dhowlana la siiyey aadan gaajadaa xun usan waxba kuma yeesho baan ku gurana jeebabkaan buuxsan waa socon maalintii ulilan socon maalintii ulilan socon habeenkii damboodhan baan socon mid waaxida kama dhigayno ma nasarayno waxa iyaga socodkaan ku cunanaa socodka yaa waxaanu ognahay meeshu waa meel dhiiq baa ka baxayo oo dhiiq cawan meeshu waa cawlanta had iyo jeer waxaa cawan waa gaajo cuntada xobta bas hilibka sarajoog baa ku diran intaan soconayni habeenkii saddexaad baa noo dhashay noo soconayna waa soo kala jeesanay hilibkii subaxdana bariskii karsana waa la qalay bariskeena qoraxa waa soconay maalintoona la soconay habeenkii afraad كيف مؤتمرك عيدك انت الناس عندك odagaa noqota الناس عندك ما كان balahi wadaca ku haraya ninka ku xigaa ninka kan wadaanka ku xigaa ninka hogaanka haya buu ku xigaa anaa ka dambeeya ilaa xasan ciidanka xagga dambe ka soo raacinaya ya saasa isu daba joogta waxaynu socodkaan ku cunayna mid yar iyo mid weyn markaanu macalikad cuna soo gaadhay 3 maalmood bay noo soo noqotay macalikad cuna mar baa laag soo buuxay loo aynu sanawaata day gashay wala faruug sanaaqad la faruug markaanu sac ula leexanay usoo leexanay xaggii abdaa aan farfka dawada gashanayna buurbal markaa ku jiray dhagaxa baa kabiyoo dee qarxay oo hoostii ka qarxay kaba isboortisaana ka soo siiyey habeenkaan soo baxayna madheer gashaan kabii dushiina waa ka qarxay hoostiina waa ka qarxay cagihii baa geesaa u baxay dee markii raggii oo dhamma waa wada yiri waa cagacadna waa fadhiisana
ninka garwadayha nooca waa ciidankii 4 la qoray ciidamadii 4 doorashadii fooda saaray loo diyaargeliyey weeye buu ka mid yahay buu ka mid ahaa oo ciidamadu ka tago meeshaasu biyaar ku cilaaculi waxaa kaloo aad noo sheegtay inuu idinla socdo ninkii gaari taliiqa jira xiraatanaad helikobtarka u waday waa ninkaas waxaa noogu dambeysay ninkaas gaariga markuu ka degay waa noogu dambeysay ya ninka xayd markaasaa noogu dambeysay burco caadiya hargeysa caadiya 4 garajoog geesuu dhaqaaqay ciidamo soo qaybinaya war uma hayo ninkaas beeru ku noolyahay ninkaasi habeenka markuu gaari ka degay waa noogu dambeysay xagaan malay rag waa kabaleeyahay raggii waa fadhiisteen intuu saa u eegay ragga arkay markii cagacadaantii ninkii garbadanka ahaa waa nin libaaxa weliba nin tuutaaga labadiisa lugood goy labada lugood maarta buu tuutaa jira waa la jiray saasaa loo kala dilaaciyay surwaalkiio markii la kala dilaaciyey buu waxaa soo jartaa alkaasuunkaa beelka mala maarta oo ishaysta isagoo tuutugu ishaysta beelkiisu kaana soo jara kiina uu kala jeexay kabliinkii ugu horreeyay bay ugu bilaabaa ninka wuxuu sameeyey kabtiintu isku soo ururiyey xaggii hoosena iskaga soo ururiyey xaggii sarena iskaga soo ururiyey kabtuu cagtii ku jirta ku kaba xarigiina waa ku giijiyey farsamadu waa la kala qaata sidii u giijiyey wuxuu u hagaajiyey u hanaaniyey kamida aan nolol lahayn buu masaaraa ninkii labada adiba jigjig ka duga waryaa waa kabare yaa ciidankii waa kablinkii tuuta lagu dhameeyey ka bogd waxaan ka dhacay waraqa buurta ka xigta bidixda marka lasii socdo loo soo socdo hargeysa warqa ka sarreeya ka soo dhaco 11 iyo barkii baan soo gaadhay laamigii waa hagaag qaybtii koowaad ee barnaamijkeena imtixaanaha ah ee howlgalkii jebinta xabsiga madheero ee sanadkii 1983 ee uu hogaaminaya allah naxariistee maxamed xaashi diiri dhexde intaasaynu kusoo gabagabaynaynaa waa inoo toddobaadka dambe haddii ilaahay raalli ka noqdo iyo qaybta labaad oo halkaa inoo kasii socoto